السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم سو دوادا موقال عصب maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay xaalad cajiib leh xaalad aniga ahaan iga yaabisayna idinka yaabin doonto xaaladaas oo lagu magac daray ka cabsashada indhaha ama loo yaqaan emetophobia taasoo qofka in uu ka baqdo mise ka cabsado wax walbo indhaha quseeya markaan leeyahay ka cabsasho waa cabsashada saxda ahayd oo lagu yaqaanay qofka cabsoonaya waxyaabaha uu dareemayo taas oo noqon karto qofka in uu wadnaha garaacmo dhidid ka soo daato afka qalalo xitaa jareeyo marka qaar xitaa ilaa heer suuxitaan uu qofka gaaro marka qofkan wuxuu ka baqanayaa maxay tahay waa wax walba oo indhaha quseeyo tusaale ahaan qofka markay isfiirinayaan oo kale ama laba qof ay isfiirinayaan indhaha kama fiiri karo hoos ayuu fiirinayaa wuxuu ka cabsanayaa qofka indhaha inuu ka fiiriyo intaas kuma eko wuxuu xataa ka baqanayaa inuu indhaha iska taabto sidoo kale wuxuu ka baqanayaa xitaa dhakhtar indhaha inuu la kulmo indhaha laga fiiriyo xataa goojada indhaha inuu indhaha isaga dhibciyo wuu ka baqanayaa wuxuu xitaa ka baqanayaa inay shaambo indhaha ka gasho inay indhaha ciid ka galaan wax walba oo indhaha quseeya ayuu ka baqanayaa cabsidan ayaa heerar kale leh laga yaabo in marka hore ay stage hore ay tahay ay fududahay marka qaarna ilaa heer aad u daran ay tahay marka maxay tahay cabsidan aad u daran oo qofka uu dareemayo oo la dhihi karo cabsi iska micno dara ah laakiin qofka dareemayo ay u tahay wax aad u weyn oo la dhihi karin micno daro waay qofka ay aad ugu culus tahay uu dareemayo taas oo loo baahan yahay qofka in xitaa laga caawiyo marka waxyaabaha sababi kara maxay tahay waxyaabaha sababi kara ayaan si cad loo aqoon laakiin waxay u badan tahay inay sababto qofkan in uu horay u arkay ama xasuus hore uu leeyahay ama qof jug indhaha kaga soo dhacday inuu arkay ama asiga laftirkiisa taas oo keeni karto in uu ka baqdo in uu indhaha oo dhan uu ka waxyaabahaas kaliya ma sababi karo waxyaabo aad u fara badan ayaa keeni karto laakiin weli baaritaan ayaa ku socda marka qaar xitaa waxaa suurtoobayso in ay sababtay qofka oo filim daawanayo in uu ka arko kale filmaanta dad indhaha laga bixinayo kale in uu arko kale qof jug indhaha laga gaarsiiyo kale iyo filmaanta aad u naxdinta badan in uu ka dhex arkay taas oo u keentay inuu habeenka qarwo oo xasuus weyn ay ku yeelato oo heerkan walbo indhaha lagu sameynayo in uu ka cabsado marka haddii uu qofka xaaladan isku arka ayaa wuxuu u baahan yahay in uu caawinaad u raadsado ama daaweyn caawinaadaas oo marka hore ka bilaabanayso dadka u dhow kale ama qoysaska u dhow kale inuu caawinaad ka weydiisto inuu xaaladan dareemayo in ay ka caawiyaan ama la talin ay siiyaan ama ay weheliyaan markuu dhakhtar indha aadayo kale ama markuu goojo indhaha isaga shubayo kale inay weheliyaan u dhiirigeliyaan waxyaabahaas oo kale way ka yareynaysaa qofka cabsida zaa'idka uu dareemayo laakiin qofka haddii uu ka fogaado oo mar walba wax walba indhaha uu ku sameynayo kale ama tusaale ahaan marka uu rabo inuu wax soo jeediyo kale dadka badanaa waxaa muhiim ah qofka inuu indhaha ka fiiriyo kale si xiriir qofka ula yeesho kale waxyaabahaas oo dhan haddii uu ka fogaado dhakhtarka indhaha uu ka fogaado oo xataa taabashada marka qaar way keeni karta inuu ka fogaado oo xataa cabsi joogto ayuu qofka qabi karaa oo ah inuu indhaha ka dhaco kale mar walba inuu ka baqdo waxyaabahaas oo dhan in uu u sheegto marka hore qof oo u dhowo kale in la talin ka siiyo haddii ay markaa xataa ay ka saacidi weyso dhakhtar markaa psychiatrist ama dhakhtar psychology inuu la kaashado xataa markaa waxay gaarsiin kartaa heer daawooyin la siiyo qofkan dejinayo oo caawinayo oo maskaxiyan u daaweynayo in la siiyo laga yaabo in daawooyinkaas toos ah in u daaweyn laakiin calaamadaha marka qaar uu dareemayo qofka culays weyn ku haysa inay ka yareyso aniga ahaan waa arkay hal iyo laba waa arkay oo aad inkastoo aad u fara badneen oo caruurna ahayn dad waaweyn oo xitaa markii aan rabo in aan goojo indhaha kaga dhibciyo aad u baqaayo indhaha isku qabanayo oo aan la yaabo maxaa kugu dhac qof weynaa tahay marka xaaladan way jirtaa waa xaalad aan la dhayalsan karin oo xaalad jirta caadi ahaan cabsida aad u fara badan tahay dadka qaar waxaa arkaysaa ka cabsoonaya inay habeenka banaanka usoo baxaan mugdiga ka baqanayo midkaana waa mid ka mid ah cabsiyooyinka micno darada ah oo qofka waxyaaba micno daraha uu ka cabsoonaya laakiin qofka heesa xaaladan ee u tahay arrin aad u culus oo u baahan in laga caawiyo adiga ahaan horey muu aragtay qof cabsida noocan qabo intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabeynaa haddii taa markuu warayso muuqaalinta subscribe noo saar sidoo kale like noo saar waxaan idin rajaa caafimaad iyo nafyo